jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wakiilada xeerka kufsiga sinada iyo xadgudubyada la xiriira xeer number 78 2020 wuxuu ka kooban yahay 3 cutub qaybta koowaad waxay ka hadlaysaa qodobo guud bay ka qaybta koowaad waxay ka hadlaysaa qodobo guud waxa ugu horeeya qodobka koowaad oo magaca xeerka ah xeerkan waxaa lagu yeerayaa xeerka kufsiga sinada iyo xadgudubyada la xiriira xeer number 78 2020 qodobka labaad waa eray bixin oo la soo hagaajiyay qodobka saddexaad oo ah qaybta koowaad ku dhamaanayo ujeedada xeerkan oo akhriyayna ujeedada xeerku waxay yihiin kuwan soo socda kow in la dejiyo xeer waafaqsan shariicada islaamka iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland mabaadi'da guud ee cadaaladda qiyamka iyo dhaqanka suuban ee ummaddu leedahay laba in la hirgeliyo ciqaabta shariicadu u dhigtay sinada noocyada kala duwan sida ay isla ogol yihiin labada sinaysanaya iyo takhasabka iyo jujubka ku timaada iyo faldambeedyada kale ee la xidhiidha saddex in la ilaaliyo karaamada aadamaha dhammaantood gaar ahaan dadka nugul afar in laga hortago isla markaana la joojiyo faafitaanka sinada shan in la xaqiijiyo in dhibanayaasha kufsiga iyo xadgudubyada la xidhiidha ay helaan cadaalad ku salaysan shariicada islaamka isla markaana dhibanayaasha ehelkooda markhaatiyaashooda iyo qaranadooduba ay helaan ilaalinta iyo badbaadin marka ninku markhaatiga furayo waa qodobadii lagu soo daray bay ka mid tahay in la helo xeerar sahlaya ama saamaxaya in nidaamka maaraynta iyo xalinta dambiyada kufsiga iyo xadgudubyada kale la xidhiidha noqdaan mid habboon oo la iska halayn karo waafaqsan axkaamta shariicada islaamka iyo xuquuqaha dastuuriga ah ee cidda dhibanaha iyo eedeysanayaashu bay xaq u leeyihiin toddoba in sida ugu habboon loo ilaasho loona daryeelo bulshada qaybteeda nugul oo ay ka mid yihiin haweenka carruurta dadka waalan iyo naafada siddeed in la xakameeyo lagana hortago cudurrada iyo waxyeelooyinka kale ee ka dhasha sinada noocyadeeda kala duwan sagaal in dowladdu awood u yeelan karto aqoonsashada iyo dabagelista dambiilayaasha galaya kufsi ama xadgudubyo la xidhiidha markaa qaybta koowaad waxay ka kooban tahay guddoomiye qodobka koowaad labaad iyo saddexaad